halkani waa qaybta harqaanka markanse dhar laguma tulayo dhawaan ayay ku soo biirtay dagaalka Soomaaliya ee ka hortagga cudurka COVID-19 waa warshad ku taal Muqdisho oo si maalinle ah u soo saarta 34,000 ilaa 40,000 oo waji xir face mask kuwaas oo jeermis dile lagu buufiyo in ka badan 60,000 oo waji xiraya magaalooyinka galay kadib markii guddiga wacyigelinta iyo xubno ka mid ah xukuumadda Soomaaliya ay bulshada u qaybiyeen balse waxaa jira dad aan ku qanacsanayn tayada agab lagu sameeyay Soomaaliya sida uu sharaxayo Cabdinuur Xasan oo ah maamulaha warshadda Yooco wuxuu yiri maydin Soomaaliya ka tirtir ka bacdina suuq fiican baad u helaysaa waxaan ku yirnay lacagtaasan uu midaan u baahanahay maaha marka dadku waa bahdilan yihiin ganacsadayaasha especially waxay rely ku yihiin maaragtay system kale marka anu waxaan dhihi lahaa fikir ahaan dadka ganacsadayaasha waa dhibaatada dalka ka jirtay qayb ka yihiin in shaqo la'aan dhacdo shaqadii la abuuri waayo daray qayb la yiraahdo Yooco face mask oo samaysa bahalkan hadda aanu xirannahay bahalkan internationally waa kan laga isticmaalo oo face maskiga la isticmaalo oo ka samaysan materialka non woven-ka la dhaho wuxuu u samaysan yahay laba xabo isa saaran waa la testigareeyay installation baa lagu sameeyay oo bakteeriyada waad arki doontaa qolkan ayaa loogaga dilay processkaas soo maraa tan iyo dabayaaqadii sanadkii hore 2019 malaayiin qof ayuu coronavirus shaqo la'aan dhigay caalamka weydin balse dhalinyaradan iyo kooxo kale shaqo abuur ayuu u noqday coronavirus sababtoo ah halkan oo aysan ka shaqayn jirin ayay markan ka hawlgalayaan waxayna soo saarayaan maaska sanka lagu xirto ama gafoorka kan lagu xirto ee maaska loo yaqaan subaxii ilaa goor dambe oo habeenkii ayay koox u shaqeeyaan dhalinyaro 100 gaaraya oo la hawlgeliyay intii coronavirus Soomaaliya ka bilowday markii hore si camal la'aan ku ahaa caasimadda shaqadan aniga aan hayno waxay nagu fududaatay waa ilaahay maadiisa shirkaddan Yooco face mask oo dadaal juhdi dheer gelisay ayna u gelisay dalkeena Soomaaliya cudurkan macna COVID-19 ama coronavirus dalkeena macna hooyo ku soo baahay aan kasto aniga aan nahay dawladda cifa waxba aan hadana tarkelino dawlad macna afnaadkeena lagu yar yahay sida laajigeeda aan u istaagnay inaan badbaadino dalkeena hooyo muwaadiniinteena nafsadeena waalidiinteena nafsadooda dadka nugul oo jilicsan ama qarka jilicsan inaan u badbaadino oo kacna anagoo dhalinyaro ah horey waxay u ahayd warshad u danaanida danaha deegaanka oo ka soo horjeeda adeegsiga bacda taas bedelkeedana soo saarta sallado dambiilo iyo agab kale oo si ku meel gaar ah iminka loo hakiyay niyo bacahan waxaan ugu talagalnay baagaskan in aan wadanka ka joojino bacahan plastic ah dhibaatada ay leeyihiin iyo dhibka ay dadka iyo bulshada Soomaaliyeed ku hayaan iyo adduunka dhan waa loo ogyahay waxyaabo plastic ka samaysan waxa weeyaan waxyaabaha biyaha roog markuu doo xirayo jeedka xirayo isku doonay waa ayaga ma dhamaanayaan oo 10 sano haday meesha yaalaan waxa waaye wax dhamaanaya ma ahan xoolihii baa cunaya plastic-ta dhibaatada uu adduunku maanta khataraha ugu badan oo la tacaalaya ka mid tahay gacmo gashiga waji xirka iyo agabka kale ee sahli kara inaad ka badbaado COVID-19 ayaa yaraaday markii coronavirus dunida ku fiday waxaana lagu qasbanaaday in la soo saaro tiro kale si aan dad kale u qaadin xanuunkan uusan qalabkan qaali u noqon Maxamed Muuse Tarsan warbaahinta qaranka Muqdisho.